Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Amiin Amni. Halkaan naga daawanaysaana waa kanaalka Faraxlow. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaabo aadan ka ogeyn caasimadda ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho. Muqdisho waxay ka soo kabanaysaa burbur xooggan. Caasimad 30 sano ka hor ahayd dambas adkaydna in lagu noolaado ayaa maanta waxaa ku socda hami iyo horumar wanaagsan. Jabiga Muqdisho waa mid qof waliba jeclaysanaya imaanshaheeda maadaama ay haysato cimilo caasimadaha caalamka ay heli karin. Gudaha magaalada Muqdisho waxay shacabka inta badan isticmaalaan lacagaha moobilada la isugu diro sida Jeeb, EVC Plus iyo eDahab. Jeeb waxaa iska leh shirkadda Somnet, EVC Plus waxaa iska leh shirkadda Hormuud, eDahabna waxaa iska leh shirkadda Somtel. Dhammaantoodna waa adeeg moobilada lacagaha la isugu diro. Muqdisho waa hore ayay ka soo gudubtay mugdigii iyo horumar la'aantii 1991 ka jiray oo maanta waxaa la hirgeliyay goobo dalxiis aad u fara badan iyo makhaayado qurux badan oo casri ah. Xitaa makhaayadaha qaar waxaa iska leh ama ka shaqeeya dhalin ka soo qaxay dalkooda sida Yemen iyo Syria, waxaana halkan loogu soo dhaweeyay si wanaagsan. Tanina waxay caddeyn u tahay nabadda ka jirta magaalada Muqdisho sababtoo ah walaalaheena Syria iyo Yemen maysan noo imaadeen haddii ay Muqdisho ka jiri lahayd amni daro aad u weyn. Qiimaha nolosha ee Muqdisho waa mid aad u jaban, inkastoo sicir barar weyn ka jira raashinka adduunka uu saameyn weyn ku yeeshay nolosha dadka Soomaaliyeed. Haddana bilaha qaar waxaa la heli karaa kalluun aad raqiis u ah oo qiimihiisu gaaraya halkii kilogram $1, waxaana kalluunka sii dheer inuu yahay mid fresh. Laakiin bishan lagu jiro kalluunka aad buu qaali u yahay maadaama badda ay kacsan tahay. Sidoo kale khudaarta Muqdisho waxay ka imaadaa gobolka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe, waxaana la iibiyaa khudaarta qiimo aad u hooseeya. Inkastoo bilooyinkii u dambeeyay qiimaha khudaarta ay aad u korortay sababo la xiriira abaarta iyo biyo la'aanta dalka ka jirta. Hilibka noocyadiisa kala duwan sida ariga, idaha, geel iyo lo intaba waa lagu iibiyaa suuqyada magaalada Muqdisho. Sidaa ay tahay waxay shacabka magaalada Muqdisho inta badan isticmaalaan hilibka geela. Dhalinta ugu badan ee ku nool Muqdisho waxay inta badan ka shaqeystaan mootada loo yaqaan bajaaj, taasoo la sheegay inay tahay gaadiidka ugu badan ee Muqdisho laga adeegsado. Waxayna bajaajta shaqo abuur weyn u noqotay dhalinta ku nool Muqdisho, kana reebtay halaagii ama tahriib ay dalal shisheeye u aadi lahaayeen. Sanadihii u dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho imaanayay YouTubero ka socday dalalka caalamka kuwaasoo inta badan rumaysan waayay nabadda ka jirta magaalada Muqdisho, lana yaabeen beenta ay miidiyaha ka sheegaan magaalada Muqdisho. Muqdisho waxaa ku yaal garoonka shanaad ee Afrika ugu weyn. Garoonkan oo lagu magacaabo Muqdisho Stadium wuxuuna garoonkan qaadaa dad ka badan 65,000 oo qof.